السلام عليكم ورحمة الله. markale kusoo dhawaada channelkayga. maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay dhiirigelin iscaatays iyo iscaylis kama hadlayaan maanta. intaadan iscaatays ka bilaabin ama iscaylitaanka bilaabin waxaa u baahan tahay maskax ama mindset wax ku dhiirigeliya waxa aad samaynayso mataqaanaa marka ka caajis ku push gareen. dad badan ay la soo xiriiray ama dad badan oo programkayga ku jira markay isbuuc wadaan kuwa laba maalin saddex maalin markay wadaan way caajiseen way joojinayaan. soo marka maxaa sameeyaa maxaa igu caawin kartaa dhiirigelin xaggeeda inaa sameeyo wixii waa rabaa laakiin maskaxdayda iyo jirkayga ma isla shaqaynayaan. soo maxay igu saacideyn kartaa snapchat-kayga magaciisana waxaa la dhahaa dhiirigelin. soo snapchat-ka haddaadan igu darsanayn igu soo darso meeshaas ayaa iskala socon doonaa insha allah. soo maanta waxaa isku dayayaa stepyo ama wadooyin haddaa martid ku caawin kara ama aniga caabiye markaa ama caabiyaba ilaa hadarta marka wax inaan sameey rabo oo i dhiirigeliya. soo midda koowaad hadaa ku bilaawno waxaa waaye inaa step ku bilaawdid. haddii aa almeyta bilaabaysid jirkaaga muu almeyteen jirin muusan la qabsanin waxan. soo marka waxaa waaye inaa tartiib maalinba wax aa bartid. maanta inaa 5 daqiiq 10 daqiiq aa socotid ama orodid ama jiimka aa 10 daqiiq soo orodid beri 5 daqiiq 2 daqiiq aa kordhisid marba inaa micnihi wax ku kordhiso step inaa samayso hal mar aadan jaranjarta koowaad ka bilaaba ilaa hal mar mid ugu dambeysa ku dhaca ma soconayso. level waa inaa marba meel qaadid. soo step koowaad midaas waa. midka labaad waxaa waaye waxaa samaynaysaa dad waxa aa samaynaysid rabo ama sameeyey ama hore u sameeyey inaa la saaxiibtid. tusaale ahaan jiimka ayaa bilaabi rabtaa qof jiimka hore u bilaabo walo almiitay oo wax uu sameynaya yaqaano waa inaa raacdaa. haddii inaa ordi rabtid aroor walba waxaa raadaysaa qof subaxdii ordo sababtoo ah wax ku push garaya helaysaa. xifaaltanka ama mataqaana inaa competition u dhaco waxaa way ku caawin kartaa. haddii aa leedahay qofkan ku haraynin waxaa waaye caawinaad weyn ayay ku noqonaysaa. soo waxaa samaynaysaa qof howsha aa samaynayo inaa raadisid wax walba ay tahay si mataqaanaa pushkaas yar aa u heshid oo asna ku caawiyo. soo midda saddexaad hadaa u gudubno waxa intaadan u dhaqaaqin inaa samaysid waxaa muhiim ah inaa maskaxdaada ama niyadaada u sheegtid waxa inaa samayn kartid. inaad dhahdid mataqaanaa waxaan waa samayn karnaa sidii ay u dhici lahaydna inaa niyadaada u sheegtid. hadaa mataqaanaa 20 kiilo iska ridi rabtid waxaa dhahdaa okay 20 kiilo soomaa jirkaygu wuu samayn karaa easy. mataqaanaa maskaxda waxaa lalahay negative iyo positive wax la leedahay. haddii mataqaanaa mar walba negative wax walba u sheegtid maskaxdaada way qabanaysaa. haddii aa wanaag u sheegtid maskaxdaada wanaag way qabanaysaa. soo marka waxaa muhiim ah inaa maskaxdaada wax positive ama mataqaanaa macquulka ama wanaagsan aa kala dhicin mar walba si maskaxda ay u qabato. midda afaraad waxaa waaye inaa mataqaanaa hadafkaaga mataqaanaa wax macquul ah samayn karto uu noqdo. tusaale ahaan almiitada ka soo qaadno kiilo iska ridisa rabtaa ma dhihi kartid isbuucan 10 kiilo iska ridaa ama 20 kiilo iska ridaa ilaa waxa macquul ah ma. soo hadafkaaga waxaa la rabaa inaa mataqaanaa uu leeyahay maxaa la dhahaa wax macquul ah oo samayn karto inuu yahay. haddii aad ogtahay inaad shaqaysid bishi intaas lacag ay ku soo gasho ama isbuuc intaas lacag ay ku soo gasho dadaalka awdid waa kordhin kartaa laakiin ma dhihi kartid waxa isbuucan intaas ay soo galayso oo aad ogtahay inaadan samayn karin. soo marka waxaa muhiim ah inaa mataqaanaa hadafkaaga ama goolkaaga inaa mataqaanaa wax la samayn kara ama macquul u yahay aa ka dhigatid. midda kale abaalmari maxaa la dhahaa nafsadaada. sababtu waxay tahay abaalmarin waxaa ka wada macneeyo. tusaale ahaan ilaa hadda almiitada ku guda jira tusaalooyinkaga dhan almiita mataqaanaa ku saabsan. sababtan waxaa waaye channelkaana waxaa loogu talagalay inaa fitnesska iyo almiitadii waxaa kaga hadalno. soo abaalmari nafsadaada daayada ku jirtay maybe hal bilaa ku jirtay banaanka aad asxaabtaada waqti la soo qaado cuntada jeceshahay aa xiisaysid aa iska goysay intaa diet ku jirto soo cun hal maalin waxa uma ka dhibayso cheat day ama cheat meal ama whatever waxa uu wacdid ku samee si mataqaanaa jirkaaga mataqaanaa u tustid inaa waxaan ka ilaalin kartid aana ka xiri kartid. soo mataqaanaa cheat meal samee waxa aad jeceshahay cuntada aad jeceshahay soo samee. midda kale ugu dambeysa waxay tahay waxaa joojisaa inaad jirkaaga ama nafsadaada ama mataqaanaa qof kale aa barbar dhigtid. maxaa ula jeedaa macnaheed inaa qof kale wax uu sameynayo maanta aa koobi galaysid ama hebela aa mataqaanaa saas u egina sidaas u ekaatid
ama noloshaada qof kale aad dhigtid aniga qofkaas yaa wanaagsan ama qofkaas kale yaa wanaagsan. Horta fitnesska ma ahan mataqaanaa tartan, waxaa waaye inaad adi nafsadaada la tartantid muhiim ah. caafimaadkaaga inaad adiga ka fikirtid, inaad adiga isla tartantid. shalay sidaa ahayd maanta inaad la tartantid, maanta sidaa tahay beri inaad la tartantid. So waxaa muhiim ah inaad joojisid la tartanka dadka. La tartanka ma xuma micnihi inaad mataqaanaa qof dadaalayo tartamayo jihaad ku jirna noqoto way wanaagsan tahay, laakiin mar walba inaad nafsadaada ag dhigtid qof kale, qofka siduu u yahay noqonaa kan siduu yahay noqonaa. tusaale ahaanaad dhalinyarta badankood jiimka samaysa, qof walba waxaa qof uu rabaa inuu u ekaado mustaqbalka, laakiin lagama yaabo qofkaas inaa u ekaato weligaa. sababtaa waxay tahay siyaa lagu abuuray asna siyaa loo abuuray. jirkaaga waxaa laga yaabaa inaan weligiin xataa isku meel iskaga ekaanin. So waxaa muhiim ah inaad adi nafsadaada la tartantid, adi isdhiirigelisid si mataqaanaa hadafkaaga aadan uga caajisin. So marka waxaa filahaa steebyadaas hadaa samaysin inay ku caawin karto. wax walba nolosha aa ka leedahay jimicsi keliya ma aha, wax walba u adeegsan kartaa noloshaada kale, waxbarasho, noloshaada kale shaqo, noloshaada nooc walba u adeegsan kartaa hadaa steebyadaas aad samaysid. hadafkaagana waa gaaraysaa, wixii aad samaynaysan ma ka caajisaysid. So channelka haddaa ku cusubtaa wax la sameeya waa taqaanaa subscribe, like, asxaabta gaarsi. Peace out.